waxbartaan 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 barwaaqo gaarane waxbartaan waxbartaan bismillaah qaybta practicada haddii aan practican u aragno wax walba waxay u baahan yihiin itus ay taabsiye qaybta ugu horeyso ustaadii waa ila socotaana filaya dhammaan ardada 1.3.0 ama 1.3 open an application ugu qoran maxaa ugu qoran open application si loo furo application see loo soo furo application taa la furan kort meeshaas hadda aan muuska ku hayo waxaan filaya muuska inaad si fiican ula socon doontaan meesha muuska aan ku hayo waxaa loo yaqaanaa start button maxaa loo yaqaanaa start button allaha start button kaas jugsiinayna kadib wuu noo soo furmayaa markuu start button-ki soo kaco then meeshaan application list waa most used ay ku qoran tahay listigan applicationada ah adig kii kaa qanciyaa ka dooranaysaa meesha ka aragtay kii baahidaada ah markaas oo aad rabtay adiga dooranaysaa tusaale ahaan buugga hadda manhajka wuxuu doortay notepad u doortay wuxuu doortay notepad good notepad-ka waa kuwa noo soo kacay si fiican noogu soo kacay maasha allah waxaan qaadanaynaa qaybta ku xigta oo ah 1.3.1 wuxuu sharxayaa common parts of a window kastoo soo kaco qaybaha uu ka kooban yahay ee ugu caansan koo waxaa ka mid ah waxaa waaye file ama menu bar qaybta loo yaqaano number 1 u siiyey qaybtan waaye jugadan siina kuwana kasoo dhexbaxayo new window open save as page setup print iyo exit meeshaas markaan jugsin intaas ay noo soo baxayaan waxaa loo yaqaanaa menu bar waa qaybta uu ku siiyey number 1 qaybta uu ku siiyey waay number 2 wuxuu siiyey title bar uu sharxaya title bar maxaa la waa halkan ay ku qoran tahay untitled notepad meesha ay ku qoran tahay maxaa waaye untitled notepad magac mu baxsana marka magac haddii dhow loo bixi magac meesha soo qaban doona untitled way bixisa marka untitled notepad meesha ay ku qoran tahay oo dhowda magac u bixisana magaca u bixisay oo soo qormi doonto maxaa loo yaqaanaa ustaadi waxaa loo yaqaanaa title bar maxaa loo yaqaanaa title bar good qayb saddexaad minimize button waa kana halkan maxaa ku qoran minimize button waayahay qaybta saddexaad maximize button qaybtan idan maxaa waaye maximize button jugadaan siina oo weynaane kadib idan ku dhufanay restore meesha ku soo noqon minimize kana maxaa waaye haddaa jugsiiso test wuxuu aadayaa task barku ka aadaya waa kana application-kaaga waa soo kacsanaysaa waayahay number 4 maximize button waa sharaxnay close button halkan al dhaha waa kana waa meesha muus ku hayo si fiican ay la socotaan filaya good scroll bar waxaa la dhahaa halkan al dhahaa meeshaan alakaad muusa soo bixin sababta qoraal nooma qorno haddii aan qoraal qoranno Mogadishu University waayahay ustaadii waxaan rabnaa marka inaan aragno scroll bar saa u aragno scroll bar si aan u aragno aan rabnaa scroll bar inaan aragna rabnaa waa kana marka maxaa soo baxay halkan scroll bar soo baxay meeshaas aan hadda jijiidaayo oo aan muuska ku hayo maxaa loo yaqaanaa scroll bar maxaa noo haray qaybtan oo ah border waa kana waa qaybtan aad ka weyneynayo halkan aadna ka yareynayo size-ka cabirka waxa uu bedelayo qaybtaas la dhahaa sharaxaadooda iyo qeexitaanadoodana
waa soo aragnay insha Allah practical ahaana hadda waa aragnaysaan jeclahay insha Allah waa fahanteen filaya waa mahadsantihiin waxaan ugu xigo shutting down your computerkaaga si loo damiyaa shutting down your computerkaaga si loo damiyaa computerka daarto inaad damisid waxaa imaanaysaa start button waa day hore u sharaxnay juga siinaysaa waxaa kadib ka sii tagaysaa meesha ay ku qoran tahay baawa meesha ay ku qoran tahay baawa meesha ay ku qoran tahay hadda markaa dul saaran baawa soo baxay jugaan siinaynaa kadib waxaa soo baxaya sleep shut down iyo restart shut down marka waa kana juga dan siino uu damaya close wuxuu xiraa all apps and turns off uu daminaa waa kana sleep maxaa waay apps stay open applicationada ku furnaanayaan marka computer soo sheegay toora ka sii wadanaysa shaqadaada restart maxaa waay restart waxaa waay computerka juga dan siino computerka asaa si automatically isu daminaya haddana asaa isu soo shidaayo ada shidma kaa mar asaa automatically haddana isu soo shidaya markaas maxaa waay restart kaligiisa it on again uu soo shidaya turns it on again good waxaan filayaa taasna inaad fahanteen waa qaybta oo computer manhajka boog hadda oo sawirayo qaybta kood shut down ku galay sawirkood sawirka labaad wuxuu ku galiyay restart iyo wuxuu ku galiyay sleep uu ku kala sharxaya meeshaan calaamadan waxa loo yaqaanaa calaamadan maxaa lahaa power lahaa waxaan filayaa inaad fahanteen oo si fiican aad u fahanteen insha Allah waxaa nagu xigo qodob kale oo practicada ee nagu xigo waxaa waaye file explorer 1.4.1 file explorer waayahay file explorer waxaan ka raadinaynaa halkan taskbarkan meeshaan taskbar la meesha hoose meeshaan amuuska aan ku wado markaysa start button-kan ka bilaabsan muuskayga raac ilaa meeshaan line-kan cad ee applicationada ay saaran yihiin horizontal barkan cad oo applicationada ay saaran yihiin waxaa loo yaqaanaa taskbar markaas muxuu ku dhahay click the file explorer icon on the taskbar ku dhufo and double click any folder on the desktop ama si kala daarti double click any folder on your desktop laba qaab loo furi karaa in icon-kan waa kana kan waxa la icon-kan waxa loo yaqaanaa file explorer icon-kan jug inaan siino usaas noo furmo wada waay waa sameeynaa jugaan siinayna waa furmo waxa soo furmay new file explorer soo furmo waa kana meeshaan waxa qoran kore file explorer ku qoran good qaab kale loo fur karo any folder ka soo saaran desktop jug iska sii folder jug sii kaasna jug siino waa kana file explorer soo baxay magaca ka bedelan laakiin file explorer waa ka joogna meeshuna keen marka these two ways ku fur kartaa insha Allah file explorer ina si fiican fahanteen filaya waxa ku xigo see loo abuuraa new folder create abuur a new folder cusub abuur marka kow waxa lagu dhahay go to the location such as folder or the desktop where you want to create a new folder meesha aad rabto inaad folder ku abuurto tag ugu horeen anaga halkaan rabnaa tijaabo agteeda inaan ku abuurno meeshaan banaan rabnaa ku abuurno good right click blank area on the desktop meel banaan ee desktop ka kamid ah right click ku sii good waa siinay right click aan siinay when a drop down menu opens markuu ku soo baxo waa kan noo soo baxay select new si dooro waa kana new ka dooranaysa kadib new ka dooratay type marka then click folder kadib marka new aad doorto meeshaas folderkaas ku soo baxay jugsi click jugsi kadib new folder ku soo baxay type name for new folder magac baxso and press enter kadib enter riix waxaan leenahay mu aan u bixinay folderkeena kadib enter aan riixina magacuu qaato kaas folder mu la dhahay samaysanay waa kana waxaan filayaa inaad si fiican ii fahanteen
waxaa ku xigo to rename saa magac oo bedesha file or folder saa magac loo bedelaa file iyo folder isku wadaa loo abuuraa isku wadaa loo maraa markii la abuurayo laakiin magac markii laga bedelayna aan fiirino magac markii laga bedelayo iyadana isku wadaa loo maraa right click aan siinayna folder or file-ka aad rabto inaad magaca ka bedeshid right click siinay then click rename kadib badana rename meeshaan ka dooro meesha waxaan ka dooranaynaa rename waa kana jugsi magacii waa ka bedelaysaa marka haddana waxaa bixinaynaa waxaan leenahay Soomaaliya kadib inta la riixay magacaan ka bedelay waxaa qaadanay see loo abuuraa folder see magac loo bedelaa file ama folder isku wadaa loo marayaa file iyo folder markaa abuuraysid see loo delete gareeyaa file iyo folder aan haddana qaadanayna marka file-ka naftirkiisa hadaa abuurno right click siine meel banaan tii right click siine new tagay wadada loo maraan ku dhahay marka files waxaan idin files waay noocyada kala duwan ahane file ka rabtaa dooran kartaa for example ana waxaan doonaa waa new document waay markaas waxaan bixinaa facal cs and it inta la riixaya file aan sameysana kan file waay kana folder waay marka isku siya loo abuuraa magacda ka bedelta isku siya loo bedelaa see loo delete gareeyaa marka delete gareynayso file-ka waa tagay right click dhehe kadib delete taawane wada waay wadooyin right click file folder you to delete then click delete ku dhuf wada waay isagoo ku hal wada uu qoro wadooyin kale loo sameyn kara jiraan kadib delete dugsiinayna folder-kii hadda oo Soomaaliya ku qornay waa baxay waaye to move copy and paste file or folder see loo copy ama loo move gareeyaa waayahay file-ka arabna open the location that contains the file or folder you want to copy folder-ka arabtay ama file-ka arabtay meeshuu ku jira tag ama fur haddii folder uu kugu dhex jiray then right click file or folder right click oo leedahay right click aad leedahay and then click on copy or cut kadib copy ku dhufanaysaa haddaa copy rabtid copy aan leenahay marka u horeyso kadib waxaan leenahay meel banaana tagay oo banaan empty space number 4 qodobka step 4 right click and empty space within the location and then click paste right click dheh kadib meeshaan paste ka dooro jugsi paste wakaas maxaa dhacay kana faculty of cs and it oo copy ah good haddii kad arabtidna saas waa la mid waa right click aad dhehaysaa kadib waxaa leedahay kad markaa dhahdo markaa soo idilaa baxaayo kad markaa dhahayd asoo idilaa baxaayo marka meel kale le aad bas ku siinaysaa meel kale computerkaaga ka mid ah bas iskaaga sii bas meesha kusoo noqo ma yaalo kii copyga bas aa yaalo kii kale ma yaalo waxaan filayaa si fiican u fahamtay inidana si loo move gareeyo loo copy paste loo dhaho file iyo folder to move copy paste a file or folder si loo copy gareeyo good waxaa ku xigo practical waxaa noogu xigo file extension waa iska theoretical waa sharxi doonaa searching for a file or folder using the search box file iyo folder si loo raadiyaa adoo search box isticmaalayo search box is located at the top of every folder meesha uu sareyso folderka su ku yaala the search looks like text in the file name contents and the file properties ayuu leeyahay good markaan rabno inaan raadino ana waxaan rabaa tusaalahaan halkaan faysal ay ku qoran tahay waxaan rabaa inaan ka dhex raadiyo file ama folder marka folderkan aan soo dhex galay inaan file ka dhex raadiyaan rabo magac file iga jiro tusaalahaan waxaa iga jira science aan rabo inaan raadiyo science wakaas science markaan anoo dhammaystirin qoraalka oo soo baxay waa kana file-ku ii soo baxay marka halkaa meesha aan wax ka raadinayna oo science aan ku qoranay meeshaan aan wax ku qoranay maxaa lahaa meesha waxaa lahaa search box maxaa loo yaqaanaa search box marka type a word or a part of the word qayb ka mid ah ku qor the search box or the top every folder or library as you type markaa qorto the contents of the folder or library are filtered
to reflect each successive character you type. markastoo xaraf aa qorto waxaa waaye xarafka qorto waa laga soo falcelinaya macluumaad oo macluumaadkii xarafkaas ku jiro ilaa la soo qabanaya ugu dambeyn markaa qortid xarafkii magaciisa dhammaystiran faylkaaga khaaska ah lagu keenaya haddaan qayb ka mid tiro wixii sa ka bilaabanayo inay soo qabto kaas haddii aan ya ku daro waa la soo koobaya marka daas marka qodobka uu sheegay oo ah waa laga jawaabi doonaa qodob kasto oo aa qortid waay good waxaan filayaa inaad si fiican ii fahanteen insha allah oo ay la socotaan waayahay waxaan wuxuu how to exit a program that isn't responding program aan markaasi aan shaqaynaynin oo aan wax shaqo ku qabanaynin oo ka istaagay see loo joojiyaa waayahay marka si loo joojiyo marka waxaan leenahay open task manager first by right clicking an empty area on the taskbar and then click task manager or by pressing Ctrl Shift skip waxaa waaye waxaa laga wadaa taas maxaa laga wadaa taskbarka haddaan idin tusay hore aan kuu soo sheegay aa right click siinaysaa kadib waxaa ku dhufanaya task manager aad tagaysaa markaa task manager ku dhufano task manager marka ku dhufan maxaa noo soo kacay Google Chrome iyo maxaa furan Microsoft Linux Microsoft PowerPoint Mavis Bacon kulli applicationada furan yihiin marka midkii markaas ay shaqeynayeen aan jogsiinaya tusaale ahaan hadda Mavis Bacon aan ku dhufanaya kadib maxaa leeyahay end task hadduu ku shaqeyn waysa soo joojinay end task aa leedahay waa ka soo baxay good haddaan rabo mid kale ay shaqeynayeen haddana waan dooranaya Microsoft Linux kadib waxaa leeyahay end task waa baxay marka application kasta ama program kasta oo ku kacsana oo aan markaas ku shaqeynaynin waxaa sameynaysaa task waxaa tagaysaa task barka right click dheh task manager kan ku dhufanay meeshan ku keen doona kadib programka halkan ka dooranaysaa kadib waxaa dhahaysaa end task aa leedahay marka programada dhamaan ii furna halkan ka wada xiraaya end task aa leeyahay wax they are no running apps oo kaas ugu dambeyn wax ku kacsan application ma jiraan waxaan filayaa si fiican inaad ii fahanteen oo ay la socotaan insha allah steps-ka aan sameynayana aad la socotaan aad si fiican u baraatikeyn doontaan oo aad fahmi doontaan insha allah 1.5 waxaan qaadanaynaa recycle bin recycle bin waa meesha fileska markaad delete garayso ay galaan haddii aadan delete baa monthly si toos aadan u tuurin baa monthly iyo temporary kala jiraan marka si ku meel gaarada isaga turtid wuxuu gali doonaa si ku meel gaarada u turtid filekaaga ama folderkaaga wuxuu gali doonaa recycle bin si recycle binka waa kana marka recycle bin waa baldigan waay recycle bin save file application programka aad delete garaysa lagu soo celiyaa asaan jugsiinayna uu furmaaya insha allah refresh na dhado waxa culayska computerka yaraanaya refresh tan ma aha wax oo steps kale oo recycle bin loo marayo ma maxaa waaye computerka culays haduu dareemayo refresh tas okaas recycle bin aan soo kacay see loo soo celiyaa marka recycle bin marka waxaan u jeedaa ku jiro application ku jiro see loo soo celiyaa application ka ama file ka ama folder ka aan kasoo ceshanaya waxaan leeyahay toddobaad meesha ay ku qoran tahay toddobaad fileka swadka aan rabo inaan soo cesho filekaasaan dooranaya right click file or folder iyo recycle bin then restore saasaa leedahay right click leedahay kadib maxaa kusoo baxaya restore
وصول غنايا وفيرنا مركز تدوات واكنا عندك سوء علي from recycle بينك كيني الدي أرد لما أنا سود علسنا مركز إسكهوبي إني سمحكو وسنكوك عسنين فايل فور إنه سنكو فرنين أصود أنا نكو دورنينا كدي بحالي مركز then tool bar ka tagi restore all items akurfane dhamaan isu wada celi waay restore all the contents of the recycle bin waxaan dhamaan ku jiro kulli isu wada celi waay marka wax hore asaga toor ay jiraan dhamaan hadda ma dhahayo oo ma soo ceshanayo laakiin hadii lacala u baahan tahay wax ku jiro dil waa soo ceshan kartaa waxaan filayaa si fiican u fahamtay idina deleting files permanently from recycle bin ka ku dhex jirno شيء لو سيتورا سبا منتريا توس لو سيتورا مركا عدي أرم الشيء أنا سيتورا صاران عدي فايل كان يكون قرنتها أو PDF كاروانا سيتورا محل سمينا يا كان أرب تكريك سينة كدب ديليدنا الريحي أو كيبورد كاي ديليد كتارو حقو صغر أيشوا you want to permanently delete this file كان ناس توس أو تورتار بتاعي ما هو بتاع إسكهوبي كدب يس على ده يس عليه كاسوا كدي توس بحي ساكل بين دمك وأركيميست سي دمان أو تورتنا كل جود على تور كراينا وحوا سمعنا سا تول بركتي كليك امت غرفنا Are you sure you want to delete all files all of these items لا دمان تورتارتاي ديار موتا هوليه نو انا ديارمي على ديار تو اتوري كرتا ان شاء الله waxaan filayaa ayayna ina ifaanteen oo ay la socotaan qodob ku xiga waxaan baranaynaa paint and snip and sketch notepad kamid ah application aan baranayno calculator kamid insha Allah paint snip sketch notepad kan ku bilaawno hadaan ku soo bilaawno hadda baraadkan hadda marwadna soo xagashay 2.1 aan ka fiir notepad selo fura start button ka tagaysa kadib notepad oo soo doorana halkan uu ku saaran yahay hadii halka ka waysana inta ku qoraysa halkan notepad ma type c key ku qoran tahay aan notepad ku qoraysa kadib notepad uu ku soo baxay tan inuu ku jiro maana meesha meel ka waynaysa ma marka had si buu ku qoran laakiin start button ka tag kadib سيج بوكس كوغر select notepad from the results notepad انت كوغر كنا notepad دورني جوا سينينا وسوكعاي notepad ونسوكعاي notepad window bats كنا غيبة أكوي مر notepad كان غيبة أكوي وكنا new محاوي new محيكو قوانيسا new محاوي مد عصبنا أبوت هذا new ماشي أنا فرين new محاوي control n way kor qoran tahay control n shortcut keeda waa marka mid cusub ina abuurtid maxaa waaye si mid cusub oo new york dhufanaysa open directed mid cusub mid hore oo jira furaysa save ina save garis changeska ku sameysay documentiga aad wax ka sameynayso save as in document hore le aad save garis ama mid kale hor u jira copy ka sameysanayso oo meel kale iyo magac kale oo sameynayso is used to save a current file which is already saved with a different name and location also make a format or saving document for the very first time marka u horeysa inaad safgaraysa save as wala isticmaalo pages abakana to set page properties ina page ka wax ka bedesho paper size ka warqadiisa orientation ka margin ka iriska kamid print maxaa ina daawacdo control b ina daawacdo exit isaga bixid ina ka baxid programka hada exit oo baxaya waqas عن فيلا إلى فانتين وإلى سعتان إن شاء الله edit menu إن notepad أصلا أنت هاد أنا أركين إلا مذا كجرته notepad أنت أركين إلا مذا كجرته notepad أن قرايا edit كأصلا أنت أصلا مذا كجرته undo أول رئيسه سأسوع رئيس وحكا أراد
program hadda aad kansashay inaad soo celiso ama aad tirtirtay kad maxaa waaye inaad kad aad move meesha dilaa ka qaad wixii waxbartaan 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 barwaaqo gaarane waxbartaan 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 barwaaqo gaarane